maanta waxaanu rabnaa halkan annaga oo dadweynaha ku dhaqan deegaankan daaqata ku dhaqan ah inaanu shucuubtayada iyo masayrkayaga aanu ku soo gudbinno halkan aanu ku muujinno masayrkayaga aanu ku muujinno mudaharaad nabadeed taasoo aanu u gudbinayno hay-adaha dawladda ugu horeeyo mudane madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaanu rabnaa xaqii deegaankani uu lahaa in waxa weeye aanu helno waxa aanu rabnay oo aanu sugaynay inaanu helo isbedel iyo maamul iyo dawlad waxa weeye ka turjumaysa deegaankan sidaa darteed ma aanan arag namana soo gaadhin weli waxaanu rabnaa xaqii aanu lahayn waxyaabaha aasaasiga naga maqan waxa kamid ah caafimaad ma haysano waxbarasho quality ma haysano biyo ma haysano hooyooyinku waxay ku dhalaan geedaha hoostooda ku dhalaan oo laga soo qaadaa sidaa darteed wixii dawladdu ay lahayd iyo nidaamkii ay lahayd iyo haykalkii dawladnimo baanu u baahanahay oo waxa weeye just hadda ah baan u baahanahay waxaan rabnaa in laga jawaabo waxaanu rabnaa xaqii aanu lahayn ee deegaanka aanu ula midka ahayn inaanu helano rabnaa maahan markii ugu horeysay tan iyo intii isbedelku ka dhacay dalka iyo deegaanka ay shacab isugu soo baxay meel fagaaro ah ku dalbadeen xuquuq ay iyagu u haystaan inay ka maqan tahay taasi ayaana qayb ka ah ballanqaadkii xuriyatul qowlka shacabka ee xukuumadda haatan talada hayso ugu dambeyn waxaan ku soo koobi madaxweynuhu intuu yimaado intuu na arko oo haddii waxaan u baahannahay iyo waxaanu waxaynayno in la arko ayaanu aad baahan in xarunta ceel baxay ee degmada Baabili aysan lahayn xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo adeega gurmadka degdega ah ayaa qayb ka ahaa cabashada ay shacabkan soo jeediyeen foosha hadayna qabato oo hooyo halka foosh ku qabto ama halka way ku dhimanuun ama waa laga soo qaadi oo gaari kiraan baa soo qaadi ama awrun baa soo qaadi haween hadaanuna wax alla waxaanu haysanaay ma jiro waxaan doonaynaa dumarka xaggeeda iyada in wadjinda loo furo waxaan doonaynaa in ambalaas nala siiyo waxaan doonaynaa in dhakhtarna loo sameeyo waxaan doonaynaa caafimaad taama in nala siiyo waxaan doonaynaa in nala siiyo dugsi sare iyo dugsi hoose inaanu macallimiin toos ah oo 24 saac joogta oo guriyada kule inaanu